الصومالية لنوبة نعي الله عز وجل يا إنوس ولكن الله عز وجل كذلك مدحوينه وقوم هدينا عزومة يا شرفة يا سودويتا هذا لكم هدينا جزاك الله خير جزاء وحنا إلى حضركم حنا قومنا وحنا على غيركم مدحوينه Soomaalidu waxay tiraahdaa haddii la yiraahdo sidaynu yeelaa si la yeelo lama garan waayo wuxuu yiri ninkii qalaan ruuxan wala ina ragow tala adduuntaada keliya maaha taladu waxay ku wacan tahay hareeraha in laga fadhiyo waxay ku wacan tahay in la ismaqlo waxay ku wacan tahay in inta badan la isla qaato cabsi weyn baan haysan dowladnimada Soomaaliya raggii u soo dadaalay meesha ay ka keeneen aad garanayso 2012 halkan inuu wada joogay wadanku markii lagu dhiibay xaaladda uu ku jiray waad garanaysaa maantana halka aynu joogno waad aragtaa alxamdulillah adiga raggii ka horreeyay meel adagna waad ka soo qaadeen meel wacanna waad keenteen maanta inuu dib inooga noqdo oo inaga farabaxsado ma doonayno madaxweynihii kaa horreeyey halkan kursiga hadda ku fadhiyey damac fara badan baa isba ku jiray oo ilaahay ugu lahaa tana haddeer leedahay waa qabanayaa uu lahaa waa qabanayaa waxaana lahaa waad khaldanta dhib baa dhacday dhibkii markay dhacday kadib uu dhigay madaxweyne intaan dhib dhicin insha allahu tacaala ninka halkaa fadhiya awowgii waxaa la yidhahdaa garaad faarax garaad xirsi garaad wiilwal buu ku magac dheeryahay waa garaad kulmiye garaad maxamed garaad dool garaad faarax garaad wiilwal waxaa lagu yaqaanaa wuxuu yidhi ina rag hooyadiina u hayayo walaalo wuxuu ku dhaamaa ma jirto madaxweyne ragga aad kursiga aad ku fadhido eegaya walaalo soo dhawaado oo sidaynu wax u galnaa oo ilaahay hadduu kuu roon yahay sidaad ku qanacsan tihiin oo ilaahay hadduu kuu roon yahay sidee cadaalad aad igula tartami karaysaa waxay ku dhaanto ma jirto waa idinka awood weynahay oo dowladdii baan haystaa oo cidii lama hadli karayso adaa shalay ka dhayliyey maanta yaa lagaa dhaylay